ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa booqasho uu kula qaybsanayo xanuunka iyo dhibaatada waxa ugu tagay muwaadiniin Soomaaliyeed kuwa qaba dhaawacyo kala duwan isla markaana xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo Cisbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho. dadka Cisbitaal Madiina ku booqday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxa kamid ah dad ku dhaawacmay qaraxii Biso House ee magaalada Muqdisho, kuwa ku soo dhaawacmay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Maxaasi ee gobolka Hiiraan, iyo wiil yar oo dhaawac soo gaaray isagoo kubad ku dheelaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo weliyay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa mid u xog wareystay dhaawacyada xaaladooda caafimaad iyo ehelada la joogtay iyo maamulka Cisbitaal Madiina isagoo u geeyay lacag ay ku afraan. كيس إن شاء الله. ما شاء الله. استمر كان وحول بكرة. استمر إن شاء الله. تمكين وفقنا. إن شاء الله إلهي نهجك. آمين آمين. يا برينا. معك ولا؟ أنت؟ إيه. هذا سيجي هذا بناس كأرابط ولا؟ محمد يوسف agaasimaha Cisbitaal Madiina ayaa sheegay cisbitaalka ay jiifaan dhaawacyo kala duwan ayna siiyaan adeegyo caafimaad oo wanaagsan. saacado gudahooda waxaa noo imaanayaan bukaano badan oo dhaawacan oo qarax ama xabada ah. waxaa ka sii daran Cisbitaal Madiina ma imaadaan kaliya magaalada Xamar. hadda ra'iisul wasaaraha marka uu wareegayay inta ka timid Walaweyn, inta ka timid Beledweyne, inta ka timid meesha waa gobolada Soomaaliya dhama laga. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay warbaahinta qaranka isagoo ku sugan Cisbitaal Madiina ayaa ugu horeyn u tacsiiyay dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay Biso House isagoo kuwa dhaawacana alla uga baryay inuu siiyo caafimaad taam ah. dadka Soomaaliyeed ayuu u sheegay inay muhiim tahay inay iska dhigaan hubka si ay u helaan nabad iyo nolol. waxaan uga tacsiyeynayaa horta waalidiintii iyo dadkii walaalaha waxaan leenahay Ilaahay samar idinka siiyo. waxaan leenahay xanuunka waan idin la wadaagaynaa, waan idin la qaybsanaynaa, waan idin ognahay, waan idin garab taaganahay. intaas ka soo waxaan leeyahay Soomaali waxa baabi'iyay xabado sidoo doctorku noo sheegay. xabad iyo miino iyo madfac ayaa baabiisay. waxaan codsanayaa sida ugu dhaqsaha badan in dadka Soomaaliyeed ay gacmaha isu qabsadaan. waan ka shaqeynaa sidii dalkeena dib ugu dhisan lahayn. waan ka shaqeynaa sidii aan xabadaha iskaga xarayn lahayn, sidii aan qoryaha banaanka isaga dhigi lahayn, sidii aan ummadeena u badbaadi lahayn. waxaan soo arkay wiil dhalin yar oo 10 sano gaarin. waxaan ku yiri yaa ku dhaawacay. wuxuu yiri banooni baan ciyaarayay, banooniga aan ciyaarayay ayaa nala ka qaatay. qofkii naga qaadatay ayaan isniri ka soo qaata. xabad baa lagu soo bedelay. bal ka fikir wiil yar oo banooni ciyaaraya oo banoonigiisa guri uga dhacay ayaa isiri ka soo qaado markaas xabad lagu dhufay. ra'iisul wasaare Khayre ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in dawladda Soomaaliya ay ku garab siiyaan la dagaalanka argagixisada nabadeedka ee Al-Shabaab si uu dalkeenu u gaaro horumar wanaagsan oo caalamka kula tartamo. qof walba oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inuu dawladda garab istaago, la shaqeeyo xukuumadda iyo dawladda aan meel uga soo wada jeesano shabaabka. shabaabku waa cadow Soomaaliyeed. nooma ogola dalkeena iyo dadkiisuba inay horumar gaaraan. haddii aad og tahay meel dhibaato jirto noo soo sheeg. shabaabka waa inaan kulligeen ku wada jihaadnaa. sida kaliya oo uga adkaan karno waa inaan ku jihaadnaa. booqashadan uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ugu tagay dhaawacyadan jiifay Cisbitaal Madiina ayaa astaan muujinaysa sida dawladda Soomaaliya ay uga go'an tahay inay shacabkeeda la qaybsato dhibaato iyo farxad xaalad kasta ay ku sugan yihiin, maadaama dawladdan ay tahay dawladda shacabka. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.